loolanka Imaaraadka iyo Qatar ma sababi karaa in Soomaaliya ay la soo noqoto kiiska dacwadda badda tan iyo markii ay Qatar ku guuleysatay Arbacadii soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa soo baxay shaki badan oo laga qabo in is-afgaradka labada dhinac uu qayb ka yahay soo celinta kiiska muran xadeedka badda ee la filayo in ICJ ay go'aan ka gaarto dabayaaqada sanadkan iyo weliba heerka uu gaaray loolanka Qatar iyo Imaaraadka ee Geeska Afrika. Go'aankii labada dal ay xiriirka ku soo celiyeen waxaa sababay amiirkii Qatar Tamiin isagoo uu ku amaanay Farmaajo iyo Uhuru go'aanka xigmadda ku saleysan ee geesinimada leh, halka ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani uu wareysi gaar ah siiyay Al Jazeera uu sheegay in arrintani ay timid kadib markii ay Farmaajo iyo Uhuru ay warqado ka heleen amiirka. dhanka Soomaaliya, inkastoo uu ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guleed uu sheegay in muranka badda lagu soo afjari doono maxkamadda ICJ kadib dhageysiga dacwadda ee afka ayaa la soo gabagabeeyay bishii Maarso 15 ilaa 18 ee sanadkan, lana sugayo xukun cadaalada. laakiin waxaa jiro xildhibaano shaki ka muujiyay. Waxaa ka mid ah Axmed Macalin Fiqi iyo Cabdiraxmaan Wadawaa, iyadoo Fiqi uu yiri kiiska muranka baddu ma muddo kordhintii laga noqday oo kale ayuu noqday. waa lagama maarmaan in madaxweynaha waqtigiisu uu dhammaaday inuu caddeeyo mowqifkiisa ku aadan arrintani, halka xildhibaan Wadawaa uu qabo tanaasul badane Farmaajo amuu baddeena ka soo tanaasulaa. shakiga xildhibaanada waxay sidoo kale ku soo aadaysaa iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in 21 bishan laga yaabo inay Dooxa tagaan Farmaajo iyo Uhuru, isla markaana la isku raaco in kiiska badda lagu dhameeyo wadahadal ka baxsan ICJ, taas oo ahayd dalabka Nairobi. maxay tahay faa'iidada Qatar ugu jirta heshiiska Soomaaliya iyo Kenya? Qatar sanadii 2017 xilli ay aad u kacsan tahay xiisadda Khaliijka iyo loolanka kala dhaxeeya Dooxa ayay Soomaaliya siisay mashruuc ku kacaya 200 milyan oo ah dhismaha jidka Muqdisho iyo Afgooye oo 30 kiiloomitir ah iyo Muqdisho iyo Jowhar oo asagana 90 kiiloomitir. mashruucaasi oo weli socda ayaa haddana ka shaqaysiisay isu soo dhawaanshaha Soomaaliya iyo dal kale oo Dooxa kala dhaxeeya heshiis arrimo badeed kaas oo ah Kenya si ay isugu ballaariso bariga Afrika. shirkadda Qatar Petroleum ayaa bartamihii sanadii 2019 sheegtay in ay heshiis la gashay shirkadda lagu magacaabo ENE iyo shirkadda kale ee iyadana lagu magacaabo Total si ay saami 25% ugu yeelato saaminta 3 baloog oo ku yaala Lamu oo ah gobol dhaxadka Soomaaliya iyo Kenya. Qatar waxa ay iibsatay 13.57% ay ka iibsatay ENE iyo 11.25% ay ka iibsatay shirkadda lagu magacaabo Total, waana 3 baloog oo ku yaala Lamu Basin. baloogyadani oo kala L11A, L11B iyo L12 ayaa ku yaala sida aan sheegay Lamu oo ah bariga Kenya, waxayna ku fadhiistaa 15,000 square oo kiiloomitir ah. xagga moolkana waa 1,000 mitir ilaa 3,000 mitir. Qatar ayaa aaday dhanka iyo bariga Afrika dana badana ka leh kadib markii ay Imaaraadka ay ugu hormareen Khaliijka Cadan iyo aagga badda cas. shakiga ayaa ah in haddii heshiiskani ay dhex dhigtay Soomaaliya iyo Kenya oo arrinkaasi la xiriiro Imaaraadka iyo Geeska Afrika. shirkadda laga leeyahay dalka Imaaraadka ee DP World ayaa Khamiistii hore waxa ay 1 bilyan ku bixisay dhismaha jidka dekedda Berbera iyo Itoobiya. shirkadda Imaaraadka ayaa gobolkaasi joogtay 4 sano ee ugu dambeysay. DP World ayaa wada mashruuc lagu casriyeynayo dekedda Berbera oo ku kacaya 442 milyan, kaasoo ay heshay sanadii 2017. shirkadda kale ee Imaaraadka ee BO Boats ayaa iyadana waxa ay isla sanadkaas 2017 heshay maamulka 30 sano dekedda Boosaaso, waxayna ku kaxaysaa 336 milyan. loolanka Qatar iyo Imaaraadka kuma koobna Soomaaliya ee waxa uu ka jiraa meelo badan oo Afrika iyo Aasiya, waana laba dal oo dhibaatadooda ay ka badan tahay faa'iidada ay wadaan. warbixintani waxaa qoray Cabdicasiis Gurbiye.